subax kale oo aan markan safar u ahay meel ka baxsan Somaliland. sodaalka safarkayga saaka waa mid aan ku tagay doono waddanka Malaysia oo tilmaanahan dhaca jihada dhanka koonfur bari qaaradda Asia. inka badan dhowr iyo 10 saacadood waan hayn xidhiidh waan ku sii jiray safar diyaaradeed ugu dambeyntii waxaan ka degay halkan waa garoonka diyaaradaha magaalada caasimadda Kuala Lumpur ee waddanka Malaysia. qabanqaabo iyo diyaargarow kooban oo madaarka gudihiisa aan ku sameeyay waxaan markan isku diyaarinayaa inaan u sii gudbo qaybaha kale ee magaalada. waa markii iigu horeysay ee socdaal ku imaado magaaladan caasimadda Kuala Lumpur iyo guud ahaan waddanka Malaysia. waxaan sii maray jidad si weyn looga shaqeeyay dhul cagaaran oo xasiloon, waana tusaale nool oo ay Soomaalidu kaga dayan karto. waddankan intii ka dambeysay markii uu guumaystii Ingiriiska ka xoroobay, shacab iyo dawlad iskaashi ay sameeyeen horumarkan ku sameeyay si ay Soomaalidu uga baxaan siyaasadda qaloocan iyo sidoo kale qabiilka. waa kan dib u dhac weyn ku keenay sanado fara badan. ugu dambeyntii waxaan soo gaaray faras magaaladan caasimadda Kuala Lumpur oo ah goobta aan ka deganaan doono intaan ku suganay waddankan. ku soo dhawaada Malaysia, salaamaanta dhantaan Malaysia. Malaysia waxay xorriyadda ka qaadatay boqortooyada Ingiriiska bishii 8 ee sanadii 1957. tirahaan dadka ku nool waxa lagu qiyaasaa 33.8 milyan. waana waddan dadkiisu ay yihiin kuwo kala duwan. waxay kala yihiin qoomiyadda Malayga oo tan ugu badan waddanka oo ah 360% tirada guud ee waddanka. Chinese-ka waa qoomiyadda labaad kana ah 22% tirada guud iyo sidoo kale Hindida oo ah 6%. dalka nidaamkiisu waa federaal baarlamaani oo leh boqortooyo dastuuri ah oo awoodaheedu xadidan yihiin. waxaana ilaa 2019 boqorka ah dalkan Abdallah Awbahan. walow ay jiraan luuqado fara badan oo waddanka gudihiisa lagu wada hadlo, haddana luuqadda koowaad ee waddanku waa Malay. waxaase dadka badankooda ku hadlaan luuqadda afka Ingiriisiga oo tan jaamacadaha wax lagaga barto. magaaladan caasimadda Kuala Lumpur waxay ka mid tahay magaalooyinka dunida ee loo dalxiis tago, waxaanay caan ku tahay labada dhisme ee mataanaha ee loo yaqaan Petronas Twin Towers. laga soo bilaabo sanadii 1998 ilaa 2004 waxay ahaayeen dhismayaasha ugu dheer dunida. jooggooduna waxa uu dhan yahay 452 mitir, waxaanay ilaa hadda yihiin dhismayaasha mataana ahaan ugu dheer dunida. Malaysia waxay ka mid tahay wadamada Islaamka ee dunida. diinta rasmiga ee lagu faafin karaana waa diinta Islaamka, halka loo ogol yahay dadka kalena inay diimahooda si xor ah ugu dhaqmaan. astaamaha diimeed ee waddankan ka muuqda waxaa ka mid ah masjidka qaran ee Malaysia oo ku yaal magaalada caasimadda Kuala Lumpur oo la dhisay sanadii 1965 kuna tukan karaan halkii mar in ka badan 15,000 oo qof. subaxdii marka uu waagu bariyo shacabka ku dhaqan magaaladani waxay ku soo jarmaadaan intooda shaqo galaysa iyo kuwa kaleba goobahan laga cunteeyo ee magaalada Kuala Lumpur. haddaba mid ka mid ah goobahaasi ayaan hadda ku suganahay oo xilliga quraacda la joogo. garabkayga midig xilligan waxaa fadhiya Sayid oo dhowr iyo 10 sano ugu dambeysay ku sugnaa magaaladan caasimadda iyo guud ahaan waddankan Malaysia. Sayid soo dhow subax wanaagsan. bal ii waran faysal aad soo dhow Malaysia la soo tooyin kala duwan baa hay marka tooyin kala duwan example cuntadan hadda aan qorayno qaybtan hore waxa la yiraahdaa rooti taluun oo kemisteeni oo waxa weeye lagu daray ukun ama beed iyo cheese. marka waa ka muslimiinta waxay cunaan waxa la yiraahdaa nasi kebab kama waxa weeye bariis iyo beed iyo chicken iyo taluun iyo inagu digir waxay lagu naqaano.
ardayda Soomaaliyeed ee halkan wax ku barata oo qaarkood ay suura gashay inaan si gooniyo ula kulmo ayaan markan waqti la qaadanaya si aan xog dhab ah uga helo marxaladda nololeed ee ku jiraan caqabadihii ka hor yimi qaabka ay u xaliyeen iyo sidoo kale fariimaha ay u dirayaan ardayda Soomaaliyeed iyo waalidiinta danaynaya in ardaydoodu ay imaadaan waddankan Malaysia si ay wax uga bartaan. waxaana si gaar ah kulankan isugu soo dubariday madaxda iyo sidoo kale mas'uuliyiinta shirkadda QETC Quality Education and Training Consultancy xafiiskooda magaalada Kuala Lumpur iyo tan imika iyo xaaladii aad kula kulanteen inaad si kooban u sharaxdaan. waxaan dhigtaa computer science aytiigna meel wadankii kaga jirto waxbaad iska soo galaysaa waxa lagu bilaabaya programming laguma qeexayo waayo ardayda waxay kusoo dhigteen foundationkii in words programming loo qeexo oo sida loo kala tusay foundation kusoo arkeen marka meel dhaxan baa looga bilaaba aad waxay doonaysaa in wixii waayo dee wax alla waxaad ka aragtay ood ka garan ma jirto iyagina waxay doonayaan dee imikoo kale laba ugeya lagaaga bilaabi maayo in calculus oo kale halkii maraysay markan ku mitalo xisaabteeni oo kale in laga sii bilaabo adna waxa doonaysaa horta laba ugeyo maadaga waayo wadankii kuma jirto waxyaabaha markaan odhan karo wadankan in aad looga dhiso waxa weeyaan halka AT-ga science xisaab waxaa waa la dhigaa laakiin programming-kani waxaan oo dhan iskuulkana kuma jiro qof keligiida meel kale kasoo dhigtay mooyaane taasu tan kalena bua hadii qof shiliis noolado badata oo buaha taasna iyana buaha ti oo wadanka blenfiir wala arko duwinta tan wadanka bua waalidka noolay inta boqoyd shilida noolay intaas yar kor horta waxaan odhan karaa caqabadaha ugu horeysa iman karta waxa weeyaan marka wadankii masato war soo markaan hadlanahay la isweydiinayo waxa weeyaan qofkan halkee ku tagi karaa marka inta badan dadkeen waxay dadayaan qof hore Soomaaliya qofkan uu helayaa sida horta anaga aad waxa noo caabisay QETC ayaa markii ugu horeysay aan soo waliba qof kaliya oo Soomaaliya aan garaneynay anagu ku soo hagaajinay jir iyaga ilaa gurigeega wax wal adigu nolol dhameystiran aan horeysiyo dhanka waxbarashada Allahumma musta'aan systemka waxbarashada Malaysia ama hanaanka Malaysia wax looga barto iyo ka wadankeena wax looga baran jiray aad bay kala duwan yihiin aan tusaale yar fududeysiyo jaamacadaha marka wadankeena lagu jiro Faisal ma jiro wax loo yaqaan course selection ardaygu halka Malaysia marka la joogo wuxuu doortaa courseska uu qaadanayo tusaale ahaan oo kale sanadka koowaad waxaad qaadanaysaa kasoo qaad 10 course sanadkii koowaad 2 semester baad dhiganaysaa labada semester courseska aad kala horeysiisanaya jaamacadu kuma doorayso marka wadankeena taasi kama jirto oo waxa weeyaan waxaan wadankeena ka jirin laakiin halkan aad bay noogu cusub oo fikir ahaan gudneeyay ku haysaday markii intaan kooy markaa idin mariyaan inta kooy dadka dheeri dadkan dheeri hawdanaga inuu walbarasho oo baan erwadaas ولا أنا كشال أرجع شيء يعني وقت بدنا قاعدة لكن ولا شيء وقت إني ولا برشة إيه أنت فعلته هو من كران سيفتي هذا أد في عندها هاي يبقى باللي ما دقنا هي واحد security وتام wax alla waxa la koonaysan jirto caqabadihii ugu waaweyn waxa kamid ahaa maamulka lacagta oo qofku hadaan money management lahayn lacagta markii buu ka dhamaan terminology-ga isticmaalna Malaysia waxa kamid ah qofkaasi dhirtu fuushay waan idhaahdaa dhirtu fuushay macnaheedu waxa weeye qofku biilkii raay loo soo diray baa ka dhamaaday oo ku badgo'ay marka waxaan idin kula talin lahaa ardayda dambe in ay isku dayaan lacagta loo soo dirayo inay marka ay isku fileysiyaan oo isku filnaanshaha lacagta ay aad ugu dadaalaan jaamacadaha kala duwan ee ardayda Soomaaliyeed ay wax ku bartaan ee wadankan Malaysia ay qaarkood suura gashay inaan booqdo oo aan wax ka ogaado xaaladda dhabta ee waxbarasho ee halkan ka jirta maamulka jaamacadaha qaarkood ayaa iiga waramay waxay ku wanaagsan yihiin taariikhda jaamacadahan iyo sidoo kale doorka ardayda Soomaaliyeed ee dhanka aqoonta. Professor Dr. Mohammed Abdirasaq, thank you for the time to give us to meet you. Professor Dr. Mohammed Abdirasaq, waad ku mahadsantahay waqtigaaga qaaliga iyo wareysigan aad siisay. Maxay kula tahay in ardayda Soomaaliyeed iyo waalidiinta ubadkooda la jecel inay waxbarashada Malaysia u soo diraan inay ku dooran karaan jaamacadan Cyberjaya? One is because of the quality of the university
and the standard of university. jaamacadda Cyberjaya waxaa lagu dooran karaa tayada iyo heerka aan kaga jirno jaamacadaha adduunka ugu wanaagsan anagoo ka mid ah 500 ee ugu horeeya jaamacadaha caalamka. We are among the 500 top universities in the world. Dear Mr. Ali, thank you for your time. We would like to know more about APU. Ali, waa mahadsan tahay. Waxaan jeclaan lahayn inaan wax badan ka ogaano jaamacaddan APU iyo waxay kaga duwan tahay jaamacadaha kale ku yaal waddankan Malaysia. Asia Pacific University APU waxay safka hore kaga jirtaa jaamacadaha ugu wanaagsan ee teknoolajiyadda ee waddankan Malaysia. Ilaa bilowgii APU fikradeedu waxay ku salaysnayd hadba baahida ka jirta suuqa, waana sababta ardayd kasta oo APU wax ka barata aanu shaqo la'aan u noqon. waxaana iskaashi wanaagsan la leenahay shirkadaha iyo sidoo kale warshadaha waddankan Malaysia oo noo sahla in ardaydu ay shaqo ka helaan. There are so many Somali students who travel every year and study in Malaysia, and many of them they take their first choice to join UniCare. Arday badan oo Soomaaliya ayaa sanad kasta u soo safra Malaysia si ay wax ugu bartaan. Qaar badan oo ka mid ah ardaydaasi waxay ku soo biiraan jaamacaddan UniCare. Waxay kula tahay inay ku doorteen to choice this university UniCare. University Kuala Lumpur offer unique technical education. waxay ku doorteen ama ku dooran karaan jaamacaddan UniCare kuliyadaha khaaska noo ah oo u badan kuliyadaha farsamada gacanta waan kaga duwanahay dhammaan jaamacadaha kale ee Malaysia sida aviationka amba duulimaadka mariniska dhanka badda industrial logisticska dhanka warshadaha iyo qalabkooda iyo samaynta diyaaradaha from aviation marine chemical engineering industrial logistics. waad ku mahadsan tahay waqtigaaga waxaan jeclaan lahayn inaan wax ka ogaano jaamacaddan IUCL iyo takhasusyada ay ku wanaagsan tahay. First and foremost, thank you so much for coming and having me for the interview today. I think when we talk about infrastructure university, waad ku mahadsantahay inaad noo timaado waan yeelano waraysigan. Kuliyadahan ku wanaagsanahay waxaad ka garan kartaa magaca jaamacaddeena oo ah infrastructure. IUCL waxay ka mid tahay shabakado ballaaran oo iyadu markaa ku jira ganacsiyo waaweyn sida solarka iyo engineeringa, dayactirada wadooyinka, korontada iyo sidoo kale qalabyo kala duwan. Waana sababta IUCL ay u bixiso dhammaan kuliyadaha la xidhiidha shaqooyinka ganacsiyadaasi sida dhismaha, nashqadda dhismayaasha iyo sidoo kale qalabyada kala duwan. Ranging from civil engineering, construction and real estate management. kaliya kuma ekaan magaaladan caasimadda Kuala Lumpur waxaan mar kale u jahaysanayaa gobolka Johor ee koonfurta waddankan Malaysia oo ay ku taala jaamacadda weyn ee UTM safar ka badan 300 oo kiiloomitir oo aanu sii haynay jid weyn oo Toobiya ah oo taga gobolkan. Ugu dambeyntii waxaanu soo gaarnay xarunta guud ee jaamacadda UTM. halkani waa magaalada Johor Bahru ee waddankan Malaysia waxaanay xuduud la wadaagtaa waddanka Singapore waxaanay dhacdaa koonfurta waddankan Malaysia. halkan iga dambaysa waxa mara bridge kaasi oo isku xidha labada waddan waa Malaysia iyo sidoo kale Singapore oo taariikh fac weyn oo muddo dheer soo taxnayd ay ka dhaxayso. shaqaale ka badan 15,000 oo shaqaale ah oo halkan ku nool gaar ahaan magaaladan Johor Bahru ee waddanka Malaysia ayaa subax kasta u shaqo taga dhanka kale ee waddankan Singapore ee dariska lahaas Malaysia kuwaas oo isugu jira Malaysian iyo sidoo kale Singapore halkan ku nool. We would like to know more about UTM why it's different from other Malaysian universities. waxaan jeclaan lahayn inaan wax ka ogaano jaamacaddan UTM waxayse kaga duwan tahay jaamacadaha kale ee waddankan Malaysia. University Technology Malaysia was established in March 14, 1972 and we are actually celebrating our 50th anniversary this year. jaamacadda UTM waxaa la aasaasay bishii March 14 sanadii 1972 waxaana dhawaan u dabaaldegaysaa kontanguuradii ka soo wareegtay aasaaskeedii. aad iyo aad ayaan ugu faanaynaa inaan heerkan soo gaadhnay. waxaanu nahay jaamacadaha ugu wanaagsan ee dhanka teknoolajiyadda iyo engineeringa waddanka Malaysia. annaga takhasuskeenu waa sayniska iyo sidoo kale engineeringa oo sababta aad u arkayso inaan haysano dhammaan kuliyadaha ugu waaweyn ee engineeringa iyo teknoolajiyadda sida qaybta dhismaha, qaybta chemicalska, qaybta cilad saaridda, qaybta dabka iyo softwareda engineeringa, mechanical engineeringa, electrical iyo software engineeringa. waxaan kaloo ka mid nahay 5 jaamacadood ee cilmiga baarista ugu wanaagsan
wanaagsan Malaysia konton jaamacadood ay ugu horeeya caalamka engineeringa marka la isku daro intaasaan kuu sheegay waxaanu qiyaasi karnaa inaan wax badan kaga duwanahay jaamacadaha kale ku yaal wadankan Malaysia. One of the top 50 engineering, we ranked top 50 by QS World University ranking and top 200 in the world. Intaanan ka gudbin jaamacadan haddaba waxay isweydiin mudan sidee bay ardaydu ku helaan aqbalaada iyo imaanshaha wadankan Malaysia si ay wax uga bartaan waxaana inta badan sabab u ah oo suurageliya madaxda shirkadda QETZ Quality Education and Training Consultancy waa shirkad ka diiwaan gashan wadankan Malaysia xidhiidh dhow oo qoto dheerna ka dhaxeeyo xafiisyada dawliga ee qaabilsan waxbarashada iyo jaamacadaha wadankan xafiisyo kala duwan ku leh deegaanada Soomaalida kuwaas oo ardayda badankood u suurageliya in si fudud oo sahal ay ku imaadaan halkan ku tagaan jaamacadaha iyadoo laga taxadirayo culays kasta iyo sidoo kale caqabad kasta oo ardayda ka hor iman kara si aanay sabab u noqon in ardaydaasi ay waxbarashadooda dibadhac uu ku imaado. Sayid Cabdi Garcad waa mid ka mid ah mas'uuliyiinta shirkaddan QETZ xafiiska ay ku leeyahay magaaladan Kuala Lumpur ayaan kula kulmay waxaanu markan iiga waramaya adeegyada ay shirkaddu qabato. Faisal soo dhow Malaysia ku soo dhow xafiiska QETZ walaal waa shirkad qabata adeegyo kala duwan adeegga ugu horeeya ay qabato waxa weeye waxbarashadan ka shaqeynaa waxbarashada Malaysia ee jaamacadaha marka waxaan sameynaa ardayda ugu badan ee ajaanibka ee wadanka yimaada ee wadamo badan ka kala yimaada banaanna ka shaqeynaa qaybta Afrika iyo qaybta Middle East ardayda ugu badan ee ka timaada Middle East iyo Afrika waxa ugu badan ardayda Soomaalida iyo ardayda Masaarida marka shirkadayadu waxay ardayda ka caawisaa ardayda doonaysa inay jaamacadaha xaraysato oo levelada kala duwan sida degreega masterka iyo PhD marka ardaygu wuxuu u baahan yahay la talin adeegga ugu horeeyaan qabana waxa weeye la talin ardaygu wuxuu baahan laga taliyo programka uu baran lahaa jaamacadu gali lahaa deegaanka ay ku taalay area marka anagu waxaan khibrad badan u leenahay in aan ardayga ka siino warbixin dabadeedna aan u sheegno programka ama kuliyadda ku habboon ee qofkaas markaa dhigan karo sababtoo ah waalidka iyo ardaygu waxay u baahan yihiin warbixin sax ah anaga laftigayga waxaan sameynaa ardayga waxaan ogaanaa waxyaabaha uu ku fiican yahay marka la talintayada waxaa kow ka ah inaanu markaa isku match garayno ama aan ardayga iyo jaamacadda programka uu ku fiican yahay inaanu markaa ardayga u soo xulno kadibna markaan ardaygu u go'aansadana aan u xarayno aqbalaadii jaamacadda kadibna fiisiyo xarayno kadibna wadanka ku soo dhaweyno marka waa shaqo tiro badan oo aad ma garanaysaa u baahan maamul fiican iyo arrangement wanaagsan waxaan kaloo waxa uu u sameynaa jaamacadaha Malaysiyaanka exhibitions ama wax loo yaqaano bandhigyo waxbarasho waxay u baahan yihiin si dadku u ogaadaan oo ay Afrika u tagaan iyo ama bariga dhexe u tagaan inay markaa waxa weeye loo qabto carwooyin waaweyn hadda meelahan carwooyin ku qaban waxaa kamid ah Qaahira waxaa kamid ah Kenya Nairobi oo hadda 4 June ku qabanay waxaa kamid ah Hargeysa Somaliland oo aan ku qaban doono 27 iyo 28 bisha waa iman doonaan iyagu ay la kulmi doonaan waalidiinta iyo ardayda marka wadankan Malaysia waxa uu xuduud la wadaagaa wadamada Thailand, Singapore, Indonesia iyo Brunei. Malaysia waxay ka mid tahay wadamada dunida ee loo dalxiis tago waxaana ku yaala jasiirado goobo buura iyo sidoo kale magaalooyin qurux badan oo ay dad dalxiisayaal ah oo kumanaan kor u dhaafay sanad kasta ay dhaqaale ku bixiyaan si ay halkan waqti ugu qaataan waana mid ka mid ah ilaha dhaqaale ee dalkan uu ku tiirsan yahay. waxaana ka mid ah goobaha dalxiiska caanka ku yahay wadankan buurta Genting Highland, French Village iyo sidoo kale jasiiradda Langkawi walow ay jiraan jasiirado boqolaal kor u dhaafay oo wadankan ku yaal kuwaasoo dalxiis loo tago. Goobihii aan tagay waxaa ka mid ahayd buurta Genting Highland oo bilicaan qurxoon waxaana waqti fiican ku qaatay jawiga sare ee buurta Genting Highland oo boqolaal kale oo dalxiisayaal ah markan ay ku sugan yihiin waqtina ku qaadanayaan. waxaa ku yaala goobo maqaaxiya dhismayaal hoteelo iyo sidoo kale goobo kala duwan oo suuqiya kuwaas oo sabab noqday in dalxiisayaashu inta ay ku guda jiraan waqtigooda firaaqada ee daashadaashoodka aanay ku daalin ee ay ku nastaan waqtina ku qaataan. waxaa xusid gaara mudan intii aan ku guda jiray diyaarinta barnaamijkan in madaxda iyo sidoo kale mas'uuliyiintii aan la kulmay jaamacadaha waddanka Malaysia in si gooni ah su'aal isku mid ah oo aan uga weydiiyey doorkay ka qaataan bandhigyada waxbarasho ee jaamacadaha dunida
inay iigu jawaabeen si isku mid ah in markanba ay isku diyaarinayaan ka qaybgalka bandhigga weyn ee waxbarasho ee jaamacadaha waddanka Malaysia ee ka dhici doona magaalada Hargeysa 27 ilaa 28 bisha July. Waana kuwan iyagoo arrintaasi ka hadlaya. Together with QETC this time around, attending the exhibition and have our quality staff. Hargeisa. Somaliland on the 27th and 28th July. I think that's again at Hargeisa. I think that's another one which will be a very good place to be for especially high school students. Organized by our trusted partners, QETC. Haddaba haddii aad adigu dhankaaga diyaar ka tahay inaad ka qayb gasho bandhigan, tigidhka lagu galayo waxaad ka heli doontaa xafiiska shirkadda QETC oo ku yaal dhismaha Cumar Xaashi ka soo horjeedka Dera Mall dabaqa shanaad xafiiska nambarkiisu yahay 19. barnaamijkan midigiisa intaan ku kulmayno waa Faysal Maxamed Aadan Faysal Fifa oo idile sidaas Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.